madaxweyne ku-xigeenka ana madaxweynaha simaha madaxweynaha bahda wasiirada ah taliyaha ciidamada bilayska Generaal Fadal miidiyaha Somaliland xildhibaanada barisaabka dhammaanba dadka qiimaha iyo qaayaha iyo sharafta badan ee waqtigoodii noo soo horay maanta si ay arrinkan noola fiirsadaan oo ay nagala shaqeeyaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh runtii waxaa farxad inoo wada dhammaanteen muddo 2 cisho 3 cisho gudahooda in uu madaxweyne ku-xigeenku uu soo furay oo uu soo arkay 2 mashruuc oo qaali ah mid wuxuu ahaa kii ay dawladda hoose samaysay ee asfal balaadkii aynu soo marray ee waddadiisiina la bilaabay runtii يعني تخيل الروح ابن هذا كا مجل كرتو مشروع انت لك انها جيسان لقى سنين لانه waxaynu aragnaa dad badan oo qawad badan ka muujinayay dawladda hoose Hargeysa leeno waxba waanay ogeen ilaahayna Soomaaliduna waxa tiraa ilaahuna ma wax ogeen ha cadaabi laakiin markii aynu tagnay balaankii uu soo saaray asfalka ee wadooyinka lagu sameeyay waxaan u maleynayaa nin waliba cadhuuftiisii dib u laqay oo wuxuu ogaaday wax qabadka xukuumadan iminka jirta ay qabatay hadday tahay xagga dawladaha hoose iyo hadday tahay xagga dawladda dhexe in waxa weeyaan iminka mashruucan biyuhu waa mashruuca biyaha ee ugu weyn jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wuxuu ku jiraa gacan maxay ahayd in aamina ayuu ku jiraa oo aan ku kalsoonahay annaguna haddaanu nahay wasaaradda aan ku kormeerno waxa ka mid ah Maxamed waxa ka mid ah muxuu ahaa Ibraahim oo maareeyaha biyaha runtii waa nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo waydu arkaysaan maxay ahayd halka uu wax marinayo runtiina beri horuu dhammaan lahaa haddii nimankii mashaariicda subcontractka qaatay sida la rabo ay ula jaan qaadi lahaayeen waxa weeyaan ayaga mashruuca dib u dhigay sababtu waxay tahay mashruucani waa mashruuc la doonayo lagu salaynayo standardka Yurub ayaa lagu salaynaya kolka waxa laga yaabaa in dhul dhan la dumiyo intaasoo bilood la dhisay oo la yiraahdo waxba qaldan kolka waxa barigii hore wuxuu ahaa 6 inch buu ahaa iminka beebkii walba waxa laga dhigay 12 inch kolka laba beeb oo isburburyaalo 4 inch ayaa ku shubmaya magaalada Hargeysa waxa weeyaan taangigii distribution-ka sameeyay inuu dhagax dhignay iminka waa dhamaad waxa weeyaan kolka aynagu kol wax la dhicisku inta midida loo soo situu ka dhigtaa waxa weeyaan inagu waxaan u baahanay wax degdega imka inta la qaado imka ruux dhasho dhaqaaqa lama arag in imka waxa ay u xidheen in maxay ahayd ayax iyo ayax b ayaa ceelal loo qoday leeno iyagu way ka jilicsan dadka kale kolka kuwa ceelashaas laga waraabiya waxa weeyaan muxuu ahaa waanadu ogtiinoo dawladdu Somaliland siday u dhan tahay ilaa 60kii ilaa dawladdiis maxay daahir riyaale intay dhistay intay laba laabtay ilaa bay dhistay kuwa horena rehabilitation bay ku sameeyeen isla markaana maxay ahayd in way ka farabadan yihiin muxuu ahaa oo kan General Cabdiraxmaan ag taagan oo balaanka noo qaabilsan isaguna kolka waxa weeyaan ilaahay baa ku mahad leh dawladdeena doonaysa inay magaca ka tago ruuxu markuu doonayo inuu magac ka tago dawladdu waxay doonaysaa waxan inay ka dhigato sadaqa jaariya oo ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro oo ay magac u noqoto oo waxtar ay u noqoto ilaahay ayagana ha u aqbalo niyadooda aynagana ilaahay waxtar hay noogu dhigo aynaguna waxaanu leenahay shifo ku afsaara halkan waxayna la joogaa in muxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkeena oo firfircoon oo arkayseen imika inaanu fadhiisanba ayaamaan hadday tahay baankii uu tagay hadday in shalay wuxuu ku maqnaa GBL-gii iyo xumbo daraad bahayd xumbo weyn hadday waxa weeyaan intaa waxa kormeerka loo sameynaya waa jeedalka ku dhufta si in xawliga loo kordhiyo mudane madaxweyne waxa weeyaan annagu xawliga waanu kordhinaynaa waxna hakran mayno waxa naga dhiman waxay ku maqan yihiin yani ma aha wax annaga xagga iyaga ku baaqdee waxa weeye arrinkii dad baa nala wadaago maxay ahayd konsultanaa jira
farsamo yaqaanaa jira kontaraaktaraa jira waxa laga yaabaa intaas inayna yaro baajisa mooyaane annaga xagga iyaga waxba ku baaqan maayaan ku soo dhowow gacmo furan biyo macaan sida biyoodii ku macaan yihiinna xusbiga kulmiye ugu macaanaada